tacadiyada salka ku haya xasilooni darrada iyo cadaalad la'aanta ayaa noqday dabar ku xiran haweenka Soomaaliyeed waxaa dhacay falal gowracan oo saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed sida in la waayo gabdho yaryar ama dil iyo kufsi loo geysto waxay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed kulmiyeen qaybaha kala duwan ee haweenka xildhibaan Maryan Macalin Isxaaq oo ka tirsan golaha shacabka waxay sheegtay dhibaatooyinkii ay la kulmeen haweenka iyo kuwa ay wajahayaan gabdhaha gabar Aisha ka damaysay oo dhibkeeda laga hadlay ma jiro Xamdi Maxamed Faarax meel ma ku sheegtaa meel ma ku ogtay gabadhii yareed ee dugsiga lagu riday meel ma ku sheegtaa gabadhii yareed ee Boosaaso Kirishbooshka iyo darawal ku dileen meel ma ku sheegtaa gabadhii uurka lahayd oo madaxa bacda loo geliyay meel ma ku sheegtaa qabarka ugu badan ee tacadiyada ka dhanka haweenka ee ka dhashay nabad la'aanta waxa uu soo gaaraa ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha ururka Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa xustay sida ay nabadda muhiim ugu tahay bulshada iyo doorka ay ka ciyaari karaan haweenka in markay soo graduate garaysay oo guuleysatay oo soo xirtay sanad dugsiga sare lagu dilo midi halowda loo geliyo waxay nagu abuuraysaa haddana hooyooyinka Soomaaliyeed uurku taalo sii kordhisa tii hore loo haysatay ee caruurteena ku dhacaysay ee walaalaheed ku dhacaysay ee raggeena ku dhacaysay ee dabkana lagu shiday ee aan banaanka u naalo waxaan u baahanahay marka haddaan anagu kacno oo anagu istaagno waxaan badbaadin karnaa biidnillah ilaahayna waa nala jirayaa qarankan oo dhan ayaan badbaadin karnaa ka hor ciidanimadeeda ayay la shaqayn jirtay haweenka haddana waxay ku dhiirigelinaysaa dumarka in ay la shaqayn karaan ciidanka haddaba sidee haddii aragtidina ciidamo la shaqaysan kaliya darees xirata kaliya maahan shaqadintaas ogaada si kasta oo aad tahay ayaad ula shaqayn kartaa waan idin soo dhaweynaynaa qaraarka caalamiga ee tirsigiisa uu yahay 1325 ayaa hoosta ka xariiqayo qodob dhigaya nabadda iyo kaalinta ay ka qaadan karaan haweenka wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay waxyaabaha ay ku haminayaan waxa kale oo aan ku hanweynahay in aad gacan ka geysan doontaan dadaaladaas heer caalami iyo tan dhaxalgalka u ah dalka iyo jamhuuriyadda aad tihiin ururkiisa qaranka haweenka ayaa fariintooda ku soo xooriyay baaq ay dawladda iyo beesha caalamka u dirayaan si ay dadaaladooda uga mira dhaliyaan haweenka ficliyan waa inay hormuud ka noqdaan barnaamijyada iyo howlahan nabadeenta waa in si joogto ah loo qabtaa tababaro shirar aqoon isweydaarsi wacyigelin min guri ilaa iyo qaran taageeridda dadaalada haweenka ay ugu jiraan nabadda ayaa horseedi kara in xasilooni waarta la gaarsiiyo dalka sida ay qabaan haweenka u ololeeya bulshada Nasriin Maxamed Ibrahim Bilan Media Muqdisho.